dhalinyarada waxaa looga hortagi karaa wacyigelin in loo sameeyo waxyaalo badan lagu wacyigeliyo oo aarshan loo istaago mar walba wacyigelin badan lagu sameeyo laga waaniyo muqaadaraadku aad ayuu dhibaato badan u leeyahay oo ku keentaa bulshada Soomaaliyeed marka in saad looga wacyigeliyo ayagana aarshan meelaha aqoonaha laga bartanayo lagu dhiirigeliyo ay si fiican wax u bartaan haddii ay waxyaalo bartaan ay aqoon ay leeyihiin waxaan filayaa dhalinyarada aqoon yeelato inay ay target yeelanayaan ama tics yeelanayaan hami ay yeelanayaan ay wax baranayaan marka taas ayaan ku baan dhihi lahaa waa dhalinyarada waa loo wacyigelin karaa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Yuusuf Axmed waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool xaafadda Isliya magaalada Nairobi haddii isku dayo inaan ka jawaabo su'aasha weydiisay runtii waa su'aal aad u muhiim ah dhalinyarada waxaa loo sameyn karaa awalan oo isticmaasho muqaadaraadka in loo sameeyo wacyigelin tiro badan oo lagu wacyigeliyo meelaha ay joogaan naftarkooda looga tago oo loo sheego dhibaatada iyo saameynta ay leedahay yani effectska ay leedahay drugska qofka markuu og yahay dhibta marka loo sheego dhibka iyo waxyaabaha laga qaado iyo cudurrada uu keeno dabcan waxay la tahay inuu iska deyn karo yani waa in loo sameeyo wacyigelin tad kale waxay la tahay waa in la helaa ururo mise dhalinyaro ay ku dadaasha sidii ay u sameyn lahaayeen goobo ay wax ku baraan dhalinyaradaas ama yani lagu mashquuliyo mise tiyaataro loo sameeyo heese madadaalo loo geeyo ani saas baan dhihi lahaa insha Allah